bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhawaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarifka lacagaha qalaad ee Forex kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xirigelinaya macaamiishooda. Saraakiisha dawladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khiyaano ah sida ay saraakiishu sheegeen. Bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan isla markaana akoomadooda la xiro. hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba fariimood oo kala duwan ay ka soo baxeen bankiga Soomaaliya isla markaana ay u muuqato inay iska dhigatirayaan amarkii bankiga dhexe. Haddaba maxay yihiin shirkadahan? Sidee ayay u shaqeeyaan? Ma haystaan sharci? Sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha? Lacag intee leeg ayaa ku jirta suuqan? maxay yihiin waxyaabaha sharci darrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin? Maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maalgashadeen? Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa amniga, kuwa lacagaha. Waxaa kaloo galka baaristu uu wareystay dad lacaga gashtay shirkadahan Forex iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan iyo khubaro madax bannaan. Jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha Soomaaliya iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliyay ganacsiga balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dawladda Soomaaliya taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyad u haysanin kala wareejinta lacagaha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya haatan waxa uu madax ka yahay macadka maamulka iyo maareynta dadweynaha ee SIPAM oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. runtii waxaan loo yaqaan forex caalamka oo dhan ay ka jiraan macnaha wadan gooni ah kama jiraan maadaama internet based ay tahay wadan walba oo dunida kamid ah shirkadaas uu la xiriiri karaa laakiin waxa muhiimka macnaha waxay tahay shirkada joogta Soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalaal lacagaha ah waxa loo baahan yahay in ay ruqsad ka haystaan wadanka ay joogaan. Sidoo kale marka waxa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya in lacagaha si fiican u maamuleen. Sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan khatarta ku imaan karta. Shirkadahani waxay soo shaqeynayeen tan iyo sanadkii 2018. Saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyaddu waxay aaminsan yihiin ilaa 300 oo milyan oo dollar inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan. Ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay wadanka ka baxeen sida ay wadanka ugu soo laabtaana ay adag tahay maadaama lacagtani aysan ka shaqaynin gudaha Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ma xiri karto akoonnadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaalaan. Waxay xiri karaan oo kaliya akoonnada ka furan gudaha Soomaaliya. Waxay shirkadahani sheegeen in dilaaliinta joogta wadamadaasi dibadda ah ay akoonno u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akoonnadaasi si ay ugu kala gedistaan lacagahooda. Waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen inta kalena waxay u dhigaan akoonkaas. Shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan 35 maalmood gudahood. Lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaado macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa 70%, ugu yaraana 20% ama inta u dhaxaysa. Saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore kadibna ay wareegaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xiran tahay inay kolba macaamiil cusub helaan. Mid ka mid ah saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan isla markaana ugu qoraan macaamiil cusub. Fariimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in toddobaad kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub. Dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan. Shirkadahan Forex-ka ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh
si ay u noqdaan safiiro u dooda. qorshahan ayaan istaagayn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadaha. walaaca ugu weyn ee ay qabaan saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyey dabaqadda u hoosaysa ee bulshada sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah iyo weliba dad kale oo lacaga ka soo daysaday bankiyada, kan ugu yarna uu maal gashaday $500. sayid cali qaasim maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mida shirkadaha forex ee ka howlgala magaalada muqdisho. $10 ayuu rabaa qofku inuu loo maalgeliyo, wuxuu kusoo daraa 500 ama 200 ama 300 qaladaas sidii ay tirkiisa u qaataan ku xiran tahay. $1,000 waxaa laga yaabaa 30 beri ama 35 beri inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay, laakiin faa'iidada ay bixinayeen inta ilaa 300, 400, 500, 200 inta waa soo shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda Qubrus iyo wadamada Maleeshiya iyo Turkiga, kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha. hase yeeshee lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa. sidoo kale faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto ha la ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dowladda Soomaaliya, isla markaana aan laga bixinin canshuur. sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee korsocodka uu ku leeyahay bankiga dhexe. sayid cali qaasim maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan. Haaruun waxay ku xiran tahay qoladaas ay u furan tahay farsamooyinka ay isticmaalaan. haddii lacagtan dibadda ka diboosigirayaan way samayn karaan, haddii gudihii ka diboosigirayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo waddankanaga waa dareemi kartaa central banki iyo mastercard regulation ku sameynaya bangiyadii oo bankiga xitaa haddii ku yaalo mastercard isticmaalayo muqdisho ama Soomaaliya uu ku yaalayo waxaa laga yaabaa lacagta laga diboosigiraynayo inay xadiyan tahay ama caqabad lagala kulmo. marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku hayaan waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan oo xagga laga diboosigirayo. marka farsamada waxay ku xiran tahay iyo istaraatiijiyadda ay isticmaalayaan qoladaas ay u furan yahay agensiga ama xaruntaas u furta dadka inay maalgeliyaan. waa gartay. su-aashaydu meesha ku qotanta waxa weeyaan bankiyo leh corresponding account ama bankiyo ay la macaamilaan oo caalamka ah, lacagaha la isku mariyo miyaa jira mise bankiga dhexe Soomaaliya la maraa mise bankiyo gaara la maraa mise xawilada la maraa? taas way taan rabinaysaa. Haaruun bankiga dhexe harto lama maro oo lama mari karo. bangiyada dhexana oo bangiyada aan dhehe localka ama magaalada Muqdisho ku yaalana way ka xadidan yihiin lacag in la marsi karo aad u adag tahay oo waxaa laga yaabaa lacag kooban inuu ku ogol yahay oo lacag badan aada ka diboosigiri karin. marka safety iyo number in la isticmaalana oo lacagtan lagu wareejiyana caqabad lagala kulmo. marka laakiin saan kuu sheegay mar walba waxaad u baahan tahay saacidaad ama dawladda inaad ka heshid ama dad aad adeegsatid. laakiin sida aan kuu sheegay waxay ku xiran tahay xaruntaas dadka u furan tahay istaraatiijiyadii marka hore ay ugu talagaleen lacagta inay ku diboosigirayaan way haystaan already wax ay sii degsadeen waaye wayna ka bixi karaa wayna heli karaa meel ay ka lacagtaas ay marsiyaan oo software la isticmaali karaa jiro. laakiin waxay ku xiran tahay qofkaas markii hore soo ugu diyaar garoobay iyo caawinaad inay markii hore uu sii samaystay oo lacagtaas uu ku diri karo ku gaarsiin karo brokerkaas. lacagahan waddanka laga bixiyey ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaab mugdi ku jiro, sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dowladda. saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka Imaaraadka Carabta, kadibna ay uga sii gudbaan waddamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha forex, gaar ahaan 3 waddan ee Qubrus, Maleeshiya iyo Turki. mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsaday inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada Muqdisho oo kale. ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku hayo magaalada Muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro, ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin. qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud. gudoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa goor hore uga warramay VOA-da sida uu u arko shirkadahan. anagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha
shati ama license ka haysta bangiga dhexe ogolaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado cid kasta yihiinba waa dad uun dee qaab khayru sharciga ku shaqaysanaya dabadsi xilka naga saaran inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin haddii aad lacagtaada sarrifayso suuq ka sarrifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aad lacag dad kale sarrifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashi jirin oo sharti aad u haysataa jirin oo suuqa aad ka ganacsanaysa lacag ka qaadaysa yahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa habmaaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku dee si khayral sharciga ku shaqeeyey haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa faa'iido baad ka